العقال إنوها من هير قرنا يفوق عطاء سياسية مدحويني هو رئيس جمهورية الصومالي لأنها عبد الرحمن أحمد علي عبد الرحمن طور يو عمر عرتي قالب يو دكتور عبد المجيد حسين تنشرها قرمدا مدوبة أوفالية ودنك إثيوبيا دولة كل الكسناد وكمدها عبد الرشيد دولة الرفلة يحل بعنا كل الكاسي يو دمان بعدك كل الكاسي أقول لكم جراد عبد القني جراد شامعية جراد سليمان جراد محمودية بقر عبد الله أحمدية جراد إسماعيل عبد العالم يو دمان بعض حسن عبد الحدي أبرار أسقنا شيف عاقل قبل كأوضة سقوا مسيرية دمان بعض وقاسة يدقيد هالكاسي واحد ما أنتوا تعتوا دريان قويسية قرابة محمد حاجي باعنا قالوا كجير يودي عبد الله حاجي أو كتر سنوات الصومالي جيد عدبي تيلا أي waxa uu ku tilmaamay mustaacigaal muddadii dheereed oo siyaasadda ku jiray inuu hantu gaaray isagu inuu wasaar marka noqdo wankii Soomaaliya la oran jiray oo taasi ka soo kordhay waxa uu haabuu isagu aqoon dheer u lahaa siyaasadda dunida dad lahaa deeqsinimana u dheeray Abdullaahi Xaaji waxa uu Ilaahay uga baryaa marxuumka inuu shamariyo oo waraabiyo ehelkiisina sameeyay waxa uu ka qayb galay aaskiisa madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda la baxday Soomaaliland daahir riyaale kaahin golayaasha xukuumadda guutida wakiilada iyo madaxda xisbiyada mucaaradka ah waxa loo joogay wadi ka socday dawladda Itoobiya iyo xubno ka socday hay'adaha samafalka ee ku sugan Soomaaliland hadweynaha BBC Shaadiye Maxamed Rooble oo goobjoog ka ahayd halka uu ka dhacay aaska ayaa Axmed Saciid Ciige uu telefoonka kula xiriiray wuxuuna weydiiyay in ay nooga waranto sida uu dhacay أحمد أنا كم مرحوم إلهي ونحرسته محمد حاجب رهان عقال مدحويني سوماليلاند تسمعيه قريضي وحاو دعي شي آدي آد وبلارن وحاكسو قيب قريدة آدي آد أسرى بضن دياردي ميدكو لغوش دي عمال لسعودي وحاي دربلسو حقا دقاتي صدوادي إيشان يتبان دقيقة دياردي ما كي يستاكتي الباسك الأفري وحاكسو دقاي وزير كاريمها دبدا محمد سعيد جيس وحماركاسي iyaguna markii uu soo degay hor istaagay ama ka hor tagay ciidan loogu seen qaaray calanka Soomaaliland waxa markaa intii aanay diyaaradda soo caga dhigan airport ku sugnaa dad aad u fara badan aad u maleynaysid hadii usha cirka laga soo tuuro dhulka lagu soo tuuro ay dad ku dhacaysay markaas waxa soo degay oo la socday marwadiisa Kasum Xaaji Daahir iyo midda Abdullaahi Maxamed على وزيرك ورفاقينك يا وعيقلة ودوميها باشا يحبني للسعودية waxa markaas iyaguna joogay saddex wiil iyo gabar u dhalay waxa markaa dhacay markii meesha soo dejiyay waxay kadib ay koreen diyaaradii waxay isku dayay oo sin aad ay dadku uga qeyroodeen isugu ooyay marwadiisa iyo wiil kamid ah wiilasha uu dhalay markii meesha soo dejiyay waqtigiina ay soo degeen waxa ciidanku markaa muusig asaana oo qeyraaden madaxweynaha daahir riyaale madaxweynaha cusub daahir riyaale kaahin iyo xaaskiisa ayaa iyagu markaas si maamuus leh markaa u qaatay salaantii meydkii marka la soo dejiyey marwada madaxweynihii geeriyooday allahu naxariistee maxamed xaaji ibraahim cigaal ayaa waxay huwisay calankii Soomaaliland dadka airportka markaa joogay ama mas'uuliyiinta diyaaradda u dhow ama dadweynaha ama dadkii meesha ku sugnaa runtii dad aad iyo aad u qeyraysan ayay ahaayeen oo aad uga naxsan oo ay shucuubtooda aad iyo dareenkooda looga dareemaya naxdinta inta badan dadkaan arkay way ilmeynayeen Axmed shaadiya dabeetana markii garoonkii laga yimi ee halkii xabaashuna kama dheera garoonka ee ay la keenay sidee bay wax u dhaceen markaas xabaashi marka la keenay horta markii aan ka soo baxnay airportkii baabuurta aan arkay waxay ahayd baabuurtii ugu badnayd ee meel inta la iskugu timaada waxaanay u socdeen si tartiib oo aayar ay baabuurtu u socdeen ilaa airportka Berbera iyo halkii marxuumka lagu aasayay oo ah meesha loo yaqaan xerada guutada ee barxadda weyn ee lagu qabanayay aaska ama xabaasha laga qoday waxaan u soo soconay hal saac waxay dadku aad u ducaysanayeen waxay Ilaahay ka baryeen dadku in aan meesha